meeshaan aan lagu iloobo anuu wax dambiya lahayn. salaan sare saaxiibayaal kusoo dhawaada musalsalka dhaxal qaybtiisa 14 oo narnar ah. fadlan subscribe na soo dham muuqaalkan like noo saar si aad ula socotid muuqaalka dhameystiran markaan soo dhigno. galad waxa uu isku dayayaa inuu daahir la kulmo, taasna way u suurtagelaysaa. daahir waxa uu sheegayaa inuusan wax dambiya lahayn, meeshaana khalad loogu soo xiray. isla qaybta gudaheeda oday Rooble waxa uu la kulmayaa oday Afrax, waxaana uu sheegayaa in dhaxalka uu qaybta uu leeyahay uu wax ugu dari doono haddii uu u sheego warqadaha meesha ay yaalaan, laakiin isaga waa uu ku xanaaqayaa, waxa uuna ku dhufanayaa baaquli. isla qaybta gudaheeda waxa kale oo ku arkaynaa Lowkan waxa uu rabaa inuu soo afduubto ninkii aabihiis dilay, laakiin saaxiibkiis waxa uu sheegayaa inuu ninkaas halis yahay aana loo dhowaan karin, laakiin asaga waxa uu ku adkeysanayaa inuu soo qaban doono. waxa uuna qaadanayaa mootadiisa iyo hub, waa uuna raadinayaa. halka kale Qays waxa uu amar ku bixinayaa in galad loo dhameeyo. galad iyo Duniya oo sawir iska sawiranayo, waxaanu arkaynaa in gadaashooda uu Shiina taagan yahay, baaskooladna uu gacanta ku hayo, uuna sugayo Jaanis uu ku kharijiyo. Shiina gadaashiisana waxa taagan Lowkan oo asna raba inuu Shiina dilo. guys, filimka caawa qaybtan waa qayb dab iyo holaaca. ma laga yaabaa galad badbaadadiisa inuu sabab u noqdo Lowkan? galad iyo Lowkanna ay isbartaan oo saaxiibaan, maadaama uu cadowgooda hal yahay. maamaha ayaa waxay dhahaysay cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka. guys, qaybta caawa waa qayb dab iyo holaaca. caawa insha Allah 3 saac waanu soo dhigi doonaa. si uusan kuu dhaafin marka channelka subscribe soo dheh, gambaleelkana furo si aad u noqotid daawadaha koowaad oo daawada muuqaalkana like saar. waa mahadsantahay. waa inoo iyo 3 saac caawa insha Allah.